madaxweynaha sheegay shirkan jaraa'id waxaan u qabanay in aan dadka Soomaaliyeed markasta aan siino wargelin joogto ah xaaladda dalka uu marayo mas'uuliyadeena anagoo ka duulayna runtii ayaan shirkan jaraa'id u qabanay sidoo madaxweynaha sheegay dhageysateen runtii dalka xaaladda uu ku jira aad halis u ah haday tahay tiisa gudaha iyo haday tahay tiisa dibadda tiisa gudaha dadkii waa la kala irdeeyay dadkiina waa la iska horkeenay madaxweynaha shakhsi xukunka u yimid soo madaxweyne Shariif sheegay dastuurkii waa bedelay heshiisyo wuxuu sameystay sharciyo asaga u gaar ah ayuu sameystay sharciyo asaga u gaar ah sharci doorasho sharci xisbiyo siyaasadeed guddi doorasho wuxuu asaga gacantiisa ku rimistay ayuu sameystay hadda xogta aan helaynana waxa waaye guddigii maadaama international community-ga beesha caalamka awalba dhaqaalihiisa laga raadi jiray laga waayay hadda in dhulka loo gadayo oo carwadii qaranka Soomaaliyeed ay miiska u saaran tahay in inta la iibiyo la yiraahdo guddiga ku shaqeynayo waa guddi markii hore booli ku dhisnaa dhul boolina loo iibinayo ayaa rabaa dad Soomaaliyeed in dawlad loogu noqdo waa ayaan darro weyn dadkii wuxuu ku kala irdeeyay dastuurkii inuu bedelo heshiiska lagu ahaa wuxuu ku kala irdeeyay awood qaybsiga inuu dhaawacay dalka dhexdiisa ahaa oo dawladdii ay noqotay dawlad kaliis gacantiisa ku jirta dalkan awood qaybsi iyo dastuurkaas federaalka ah iyo nidaam parliamentarian ah iyo doorasho 4 sano mar dhacda lagu wada joogay ayaa bees u ahaa heshiiskiisa intiiba ku tuntay maanta waxaan ognahay deegaanada Soomaaliya kamid ah Puntland qaybta ay ka tahay dagaal shabaab Daesh looga jira dawladdan kama laha kama hadasho waxba kama sheegto ma taageerto waxba kuma darsato madaxweynuhu wuxuu leeyahay waxaan ahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hadduu damiir leeyahay oo maskax dawladnimo iyo qarannimo xashaq ay ku jirto shirja inta qabto wuxuu dheelaha Soomaaliya Daesh ku soo duushay sababtoo ah ma jirto adduunka 11 qofood oo ajnabi ah oo Daesh ah meel ay ka sameeyaan waar ismiiraamin adduunka ma dhicin maanta waxay inuu shirja ay qabto soo istaagay Soomaaliya waxa ku soo duulay Daesh laakiin xafidada kala dhaxeeya siciidada siyaasadeed oo madaxweynaha uga aaminsan yahay waayaan daro wuxuu duulay Addis Ababa soo raali geliya Abiy Ahmed soo kama fiicnayn inuu waliis Soomaali raali geliyo oo ka dago deegaanada Soomaaliya colka siyaasadeed leeyahay intuu nin Ethiopiana hoostiisa tagi lahaa waa la socotiin dadka Soomaaliya waxa lagu abaabulay oo guri iyo geedba looga soo bixiyay dhulkani cadow waa qaadanay soo madaxweyne Shariif sheegay baarlamaanka loo shiray mucaaradii muxaafadda lagu taageeray hal subax oo diyaarad qaatay waxaan aragnay asagoo Abiy Ahmed la dhaansi garaynaya la qoslay su'aashu waxay tahay ma ninkii gardarooda soo hoyda mise ninka lagu gardarooda hoyda Abiy asaga badana soo damacay asaga ciidan ka joogan Ethiopia Soomaaliya asaga u baahan ciidanka African Union in loogu daro asaga anaga hoyanayna aabta iyo sumcad darrada meesha ka dhacday Ethiopiankana maanta ay ku damaashadayaan waxay tahay in horta ayaga loo hoyday mana qariyaan ninkii lagu gabad falaa loo soo hoyday dhahay waxay kala xaqiijiyeen inaanan dad hoggaanka Soomaaliya isku haleey karin lana fikirin meesha u socdo oo dawladihii kale ay la yaaban yihiin oo shalay madaxweynaha u orday heshiiska alliance-ga la soo galay madaxweynaha wuxuu lagu riday runtii sumcad darro kaliya maaha indhaha beesha caalamka iyo gobolka sidii gasha ah oo dhacay indhahooda waxaan rabaa inaan markasta xoogga saaro arrinta dhulka dad badan baa waxay isleeyihiin dhulka ay dawladda gadayso oo maalinba la iibinayo hadda waxaa inii sheegay in carwadii qaranka loo gadayo guddiga doorashada waxaana badbaadsanayn oo miiska saaran baydhabo waxaana badbaadsanayn oo miiska saaran qayb ka mid isbitaal Martiini waxaa badbaadsan oo miiska waxaa la qaatay hadeertaana ogtihiin dhulkii jaamacadda gaaray lahayd oo dad masaakiina laga qixiyay soo lama oga dadka internet displaced ee barakacayaasha gudaha ku soo qaxay ee xarumaha qaranka degan waa dad Soomaaliyeed oo barakacayaal gudaha la yiraahdo adduunka xuquuq sharci ku leeyihiin dalkana xaq sharci ku leeyihiin in dib u dejin loo sameeyo cagafi waxa laga adeejiyaa ciidan booliis ah dhulkan ayaa la siiyaa ganacsatada laga iibiyo
warkuwaas meel ilaahay ka cabsanaynin meelaha fadhiyaan waxay leeyihiin dhulkana la siiyey maxaana la ka rabaa iskooladii u jeedaa imaam shaafici ilays xawataako iskooladii mid maalin suuqa la geynaya oo xaggee loo wadaa dalkan xaggee loo wadaa waxay ku leeyihiin kuwa dowladda madaxweynaha agtiisa jooga waxaa lagu soo iibinayaa hub helikobtaro qalab madaxweynaha dagaal buu ku jiraa waa fiican tahay anagu xildhibaano baarlamaan ku jiraan nahay iyo aqalka sare labadaba budgetka dowladda markii la keenayo miisaaniyadda markaa eegto meesha ay ku qoran tahay hantida dowladda la iibiyey zero ku qoran haddii hub lagu soo iibinayo xalaal Soomaali waxay tiraa barkacada la qashaahe ma inta la keeno oo budgetka lagu daro hubka lagu soo iibiyo yaa waxaas loo sheegaya war qaranka Soomaali waa la dhacayaa adigu qayb ka noqon ganacsado dadka masaakiinta ee la barakicinayo ka cabso xanuunka ishooda iyo habaalkooda iyo ducadooda waa mid ku qabanayo laakiin nin markii hore xoolaha ka tabcay waxaan xalaal ahayn lagama celi karo xaaraan inuu gato ganacsada nadiifka saan ognahay oo xoolahooda dhiigkooda ku shaqaystay ma galaan waxaas waxaan idiin sheegayaa in lacagaas la isaga daba tagaayo dhulkaas la isaga daba tagaayo ama anaga aan ahaano ama kuwa kala ahaadaan waxaan rabnaa marka inaan dadka Soomaaliyeed la wadaagno Sheekh Maxamuud ninka tabar daran male wuxuu isku muujiyay inuu tabar badan yahay